maxamedow wasiirka arrimaha dibadda dowladda Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa ka hadlay warar maalmihii u dambeeyay baraha bulshada Soomaalida aad u haystay. Wasiirku waxa uu yiri maalmihii u dambeeyay waxa baraha bulshada ka socday dacaayad qayb ku ah oo ka dhana dowladda Jabuuti oo lagu eedeynayo dalkayaga inuu qayb ka yahay waxa ka socda Laascaanood. Kuwani waa been abuur la soo dhoodhoobay oo lagu arqaladinayo xiriirka dowladda Jabuuti iyo wadamada dariska ay la leedahay oo ula jeedo Somaliland. marka hore waxa uu jiray warar sheegayay in madaxweyne geelle uu dhaxaadinayo oo khilaafkaasi uu dhaxgali doono maxaa ka jira arrimahaasi dhanka kale arrinkaas waa ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti waxaana uu sheegay oo uu yiri ma jiro labada dhinac ergey ka socota oo cod u soo diray dowladda Jabuuti haddii ay noqoto dhinaca Laascaanood iyo dhinaca Somaliland oo ku aadan in uu dhexdhexaadiyo madaxweynaha Jabuuti xaaladda ka jirta Laascaanood. Marka Jabuuti waxa ay sii adkeyn doontaa siyaasadeeda ku aadan deris wanaaga ay caanka ku tahay iyo dhexdhexaadinta waxaana uu yiri in wararkaas ay waxba ka ayuu sheegay muuqaalo ayaa jiray meelaha qaar lagu arkay baraha bulshada oo ku saabsan gaadiid military oo magaalooyinka Jabuuti qaarkood ka muuqanayay marka maxay ahaayeen marka hore waa ciidamada militariga ee Jabuuti oo suuradooda si qaldan loogu isticmaalay baraha bulshada marka ay noqoto caasimadda Jabuuti iyo gobolada ciidamada qalabka sida Jabuuti waa iskaga kala gooshaan isla markaana waxay ku leeyihiin xerooyin ku dhex yaala magaalooyinka marka waxaa jira sawirro laga soo qaaday xaafadaha Balbala iyo xaafadda Bulcawsta ee caasimadda Jabuuti oo loo isticmaalay baraha bulshada iyaga oo la leeyahay waa ciidamada Jabuuti oo jooga baabuurtoodu dhinaca Somaliland marka inta aan ognahay amba aan la socono ma jiro ciidamo iyo waliba hub dowladda Jabuuti ay leedahay oo ka gudbay dhinaca xuduudka looyaacada ee Somaliland iyo Jabuuti marka wax iska caadi baa in gaadiidka militariga lagu arko magaalooyinka qaar ee Jabuuti oo iska dhaxmaraan iska caadi baa mise waxa jiray waxyaabo kale oo qasbayay inay soo baxaan Maxamed ciidamada Jabuuti waxa ay leeyihiin xerooyin ay ku leeyihiin dowladka Balbala iyo caasimadda bartamaheega marka sida caadiga saanad markay ciidamada u kala gudbinayaan iyo mararka kaleba waa ay soo baxaan baabuurta ciidamada qalabka sida iyaga oo magaalada ku soo wareega isla markaana hawlahooda si caadi u qabsada marka laga hadlo Jabuuti mowqifkeeda ku aadan khilaafkan ka jira Laascaanood muxuu yahay Jabuuti waxa ay sheegtay in ay khilaafka Laascaanood ka jira ee u dhaxeeya Somaliland iyo Laascaanood ay wax shaqo ay ku lahayn dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti waxa uu sheegay in dowladda Jabuuti markasta ay ka shaqeyso oo ku hawlan tahay nabadda gobolka Geeska Afrika isla markaana ay faragelinaynin arrimaha gudaha ee wadamada dariska la